مسرح برودكشنز waxaan ku bilownay fikir ahaa in aan sameyno masraxiyad cusub oo dhinaca aflaamta ah dibna u soo nooleyno film industry-ga Soomaaliya runtii fikirka wuxuu ku bilowday oo aan ku bilownay aasaaskii masrax laba qofood alxamdulillah crew ahaan waxaan gaareynaa konton in ka badan jilayaashana ka qayb qaatay dabin oo ahaa production-keeni ugu horeeyay waxay ayakana kor u dhaafeen ilaa 250 ilaa 300 ku dhawaad anako waliba goolkeena uu yahay ama hadafkeena uu yahay in aan soo saarno saddex show TV series iyo films iyo short films iyo documentaries ay ku soo socdo hal mar soo wada saarno dabin say iigu dhalatay ma ahayn wax hal mar iska dhashay 2021 baan bilaabay qoraalkeeda dan haddana waxaa imaatay in film loo bedelo oo hadda musalsalka dabin la qoro who runs off and goes joins Hamada. The first time I read Dabin markii koowaad ee akhriyay sheekada Dabin aad ayaa ugu helay maxay la sheekan oo aan ma ka filaneen Soomaaliya waxa ka baqay in sheekada igaga baahato horumarin aad u badan waxaan u baahday isku day iyo tijaabooyin cusub maadaama 4 sano aan ku sameynay taxana maalinle ah gudaha Kenya oo lagu magacaabana Kina markay isu gaartay fikradda Dabin iyo guud ahaan sameynta taxana nuuciisa yahay drama thriller oo nooca sheekadiisu ay leedahay xiise aad u badan anigu waxa aad u jecelahay sheekooyinka qoyska waana ku faraxsanahay in Dabin ku arko sheekooyin badan oo la xiriira arrimaha qoyska family oriented runtii aad ay ugu farxay Dabin waana ka helay waana isoo jiidatay waxaan igelisayna tamar iga maqnad waxa ay ugu dhiirigelisay inaan sameeyno musalsalkan xoogaa yar oo shaki ayaa igaga jiray sida wax kasta ay u dhici karaan maxay la Soomaali wali kama shaqeeynin laga yaabay xoogaa inaan ka fahmayo Soomaaliga ay ku hadlaan Soomaalida joogta Kenya mid kale waxyaabaha aan aad iyo aad u xiiseynayno waxay ahayd inaan wax ka bedelno habkii hore sheekooyinka lagu soo xuli jiray badanaa sheekooyinka Soomaalida waxay iska ahaayeen drama ama romantic aan lahayn thrill iyo suspense anaka waxaas dhaanay maadaama adduunka uu maanta noqday adduun isku wada xiran oo dadka maanta filmaanta Hollywood kana fiirsanayaan Netflix na fiirsanayaan audience-ga Soomaaliyana ay adduunka qaarada kale ay joogaan maanta geesaha adduunka kala joogaan kulligood wax u abil gareynayo ayaan ku fikirnay marka sidaas ayaan ku dooranay Dabin wuxuu ahaa sheekooyinkii la soo bandhigay mid kamid ah sheekooyinka kalena laftooda waxay saaran yihiin miiska ayagana waa soo duubay doonaa insha Allah markan anaga film Soomaali ma duubaynin xilligan ma duubaynin niman professional waa markii ugu horeeyay oo film trailer la sameeyo Soomaaliya waa the first time waa markii koobaad 7 maalmood oo aad u qurux badan ay ahayd ma sha Allah si qurux badan oo soo moodnay laakiin qaabka loo duubay aha maadaama uu yahay markii ugu horeeyay trailer aan duubay qaabka loo duubay oo quruxda badan aha kii igu adkaa runtii aad ayaa u jeclaystay wada shaqeynta bahda masrax markii aan bilaabnay aad ay u sareysay filashadeeda aad ayaa ugu faraxsanahay inaan la kulmo tiim cusub oo bartana wajiyaal ugu cusub caqabada luqadda waxa uu gudubnay bahda masrax oo nahagayaan had iyo jeer oo caawinayaan waxayna dareensiiyeen inaanan joogin meel kale runtii Dabin meel walba ayuu tartan ka geli karaa Afrika iyo caalamkaba waxa uu leeyahay sheeko cajiib ah qaab jilinkiisana waa mid heer sare ah oo si dhab ah loo soo gudbiyay directorada Soomaaliyeed ayaa ku dadaalay taxanaa inuu yeesho dhaqanka Soomaaliya taasna muhiim ay ahayd maadaama aniga aan Soomaali ahayn waxa kale oo qorsheena uu yahay inaan academy furno inaan training badan sameeyno inaan scholarship aan dhalinyarada siino ujeedku waxa waa dhalinyarada Soomaaliyeed inay noqdaan dhalinyaro xirfad leh waxaan rabnaa inaan tagno gobolada Soomaaliya oo idil meesha rabno asleena film ku sameyn kartiin inaan ku sameeyna rabnaa